حسن يوسف دعالة كنتري سداد حلبان بقلاضي هل حلبان وادي ذي شروا كام سيد قدومي ومو عضين حسن يوسف دعالة سدا سؤال سحوية هاي فرق وينو حرية هاي وينو سبتدا Go. هلا فريستو فدق وينو فرياي وحايده قران اخريه حلبا نفسيه هذا الكلام جوجيو وانا منكي سو غلنه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الشريعة اللي احنا بافرديا حلبانada ogol in la asixiyo Cabdirashiid Maxamuud Cali gacanta taagan ya وكان وهالمية halkan waa su'aal markaa سؤال إمسا كامسي يا إمسا ديدي ما تصدق يا توما مسوا ولا 180 سكون يا دين هذا الكلام جوجيو Cabdirashiid Maxamuud Cali waxa ogolaaday konton xildhibaan 13 xildhibaan waa diiday hal xildhibaan waa ka aamusay gudoomiyuhu muu codayn sidaas oo aan sax ku yahay waayo hadalka hal joojiyo waayo محمود داير جامع xildhibaanada ogol gacanta taagay diiday laba waa ka aamusay gudoomiye muu codayn sidaas oo aan sax ku yahay kaltuun hala dejiyo Cabdiraxmaan Maxamed Xood konton iyo 8 baa sixiyay ciidamada diidin 6 waa aamusay gudoomiye muu codayn sidaas oo aan sax ku yahay Xasan Yuusuf Ducaale xildhibaanada ogol in la asixiyo gacanta taagan حسن يوسف دعالة كنتري سداد حلبان بقلاضي هل حلبان وادي ذي شروا كام سيد قدومي ومو عضين حسن يوسف دعالة سدا سؤال سحوية هاي فرق وينو حرية هاي وينو سبتدا waxaad ka mid ahayd xubintii ugu da'da yarayd maanta la ansixiyay ka waran dareenkaaga sidoo aragtaa maanta bismillaahir rahmaanir rahiim aad bad maasantiin runtii si wanaagsan bay u dhacday xildhibaanadii waajibkoodii dastuurigii bay guteen wayna soo dhamaatay imika wixii ka dambeeyana wixii dhiman baa loo gali doonaa runtiina waa hawl culus oo u baahan in si wanaagsan looga baaraandego marka runtii aad baad maasantiin hawshaasina si wanaagsan bay ku soo dhamaatay baarlamaankuna waajibkooda ay guteen imika wixii ka dambeeyana hawlihii kale ee noo yaalay
ayuunbaa la geli doonaa haddii la helaa aad bad mahadsantahay dareenkaygu waa alxamdulilah aad buu u fiican yahay waxa weeyaan xildhibaanada dhammaan ii codeeyeyna aad iyo aad bay u mahadsan yihiin haddaad weydiisay dareenkaygu horena qaranka waan ugu shaqayn jiray imikana sidii si wanaagsan baan insha Allah ugu shaqayn doonaa kalsoonina waan ka qabaa buuxda inaan sidaan ugu shaqayn jiray hore ugu shaqayn doonaa kaltuun waxaa jira in xubinta ay ku komishankaaga ee lahaa hore waxay uga tirsaneen komishankii lagu muransanaa ee golaha xisbiga waddan iyo sidoo kale xisbiga uu cudbo u diidanaa sidee kula tahay arrintaas horta waan ku saxaya xisbiga uu cudbo lagu diiday maad arag anigu waan isku kalsoonahay qof waxaana isku kalsoon qarankeeda ku kalsoon horena uga shaqaysay guddigii doorashooyinka ee horena ku jirtay imikana golaha waan uga mahadnaqayaa hawl ilhaayeen bay qabsadeen oo sharciya aniguna hawl aana walba qaranka wahay baan u qaban doonaa haba yaraatee wax dembi oo aan cid ka galay ama aan isleeyahay horaa dembi u gasho anigoon isku ogahayna ma jirto qarankaygana horaan ugu dhaartay kitaabkii hore laygu dhaarin waa laygu dhaarin doona wax ka duwanna laygu dhaarin maayo marka alxamdulilah saaka waxaa golaha wakiilada la hor keenay 6 xubnood xeerka komishanka doorashooyinku wuxuu dhigayaa waa 7 xubnood arrintaasi waa arrin aan sinaba ugu sanbanaanayn xeerka shalay waa ogeedeen fadeexaddii dhacday oo waan ka hadlay oo dib ugu noqon maayo waxaan kaloo saxaafadda maanta u sheegayaa shalayna aan ugu celinayaa tii shalaytaan ugu celinayaa 66 fadhi ayaa xisaabta qaranka ku kala kacday ee la xidhiidhay qabsoomida doorashooyinka deegaanka iyo golaha wakiilada maantana waxaan qabaa international communityguna xalayto EU-du kulankii ugu dambeeyay madaxweynahay ayay la kulmeen uu ka gowsadaygay horta waa doorasho loo kala doorashada maanta komishankan loo doortay doorasho standardna maaha doorasho la qabanayaa ma cadda